Tuulada Eelgob ayaa ahayd meel cidlo u dhow tuuladan oo dadka ku tiirsan yihiin xoolo dhaqashada iyo beerista. Habeen kasta waxaa ka muuqan jiray cirka xiddigo badan iyo dayax weyn oo iftiinkiisu dhulka gaarsiiyo sida nal. Laakiin habeenada ka mid ah, dayaxii ma soo bixin, cirka oo dhan mugdi buu galay. Markaas ayay bilaabatay qaylada. Cod dheer, dhuuban oo u dhexeeya naxdin iyo oohin. Ayuu qof ama shay qaylinayaa meel fog ka yidhi. Eyda tuulada way isla wada qeylsheen, xoolihii way carareen, carruurtiina waxay ku dhuunteen hoosta sariiraha. Waayeelka tuulada, Oday Faarax, ayaa yidhi. Waa codkii hore, codkaas oo soo laaban jiray sannad kasta xilligan. Waxaa la sheegay in sannado badan ka hor tuuladaas lagu aasay haweenay dhalinyaro ah oo si murugo leh u dhimatay. Dadka qaar waxay ku dhaaranayeen in codkaas yahay nafteedii oo weli la cabanaysa. Xasan wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo geesi ah, caqli badan, laakiin aan rumaysnayn waxyaabaha dadka cabsi geliya. Wuxuu dhahay, haddii ay dhab tahay, aan arko cidda qaylinaysa. Qof ayaa dadka ku cabsi gelinaya. Wuxuu qaatay shumac, bastoolad yar oo uu lahaa, iyo ul dheer oo uu u soo qaatay si uu isugu dhiirigeliyo. Saaxiibadiis waxay isku dayeen inay ka reebaan, laakiin wuu diiday. Habeen dambe, markuu dayaxi marku dhacay, ayuu baxay. Markuu gudaha u galay kaynta, dabayl qabow ayaa bilaabatay. Waxaa ka yeedhay dhawaqyo, caleemo isgaraacaya, dhoobo lagu dul socdo, iyo mararka qaar codad dhuuban oo u eg oohin. Shumacii wuu gubayey, laakiin iftiinkiisu aad buu u daciifay. Halkaas ayuu arkay geed dheer oo duugoobay oo la sheegay in haweenaydii lagu aasay hoostiisa. Xasan wuu istaagay, wuxuuna ku dhawaaqay. Haddii aad jirtid, iska soo bax. Ma i cabsi gelin kartide. Waxaa jirtay dhowr ilbiriqsi oo jawigu degay, kadibna shumacii si lama filaan ah ayuu u damay. Markuu shumacii damay, mugdi buuxa ayaa hareeyey. Xasan wuxuu isku dayay inuu dib u laabto, balse cagihiisa uma hoggaansamayn. Wuxuu maqlay cod dumar ah oo aad u dhuuban oo ka imaanaya meel fog. Xasanow, maxaad u soo gashay habeenkayga? Wuxuu rogay madaxiisa si uu u arko cidda hadlaysa. Halkaas ayuu arkay muuqaal dumar ah oo taagan, gacan dheer iyo timo dhaadheer oo wejigeeda daboolay. Dhiig ayaa ka daadanayay dharka cad ee ay xirneed. Wuu orday, laakiin codkaas ayaa la socday meel kasta. Ha iga cararin, waad iga cabsatay, Xasanow. Xasan wuu dhacay isagoo neeftuuraya. Markuu isku dayay inuu kaco, wuxuu arkay wejigeeda oo aad ugu dhow, indho guduudan oo dab leh. Dabayshii kaynta waxay noqotay sida duufaan, caleemihii way duulayeen, dhulka hoostiisana waxaa ka yeerayay sanqadh la mid ah neef qodaya dhul. Markaas ayaa Xasan miyir beelay. Subaxdii, odayaashii tuulada ayaa raadin u baxay. Waxay heleen Xasan isagoo jiifa geed hoostiis, wejigiisuna uu caddaan yahay sida baraf. Wuu neefsanayay, laakiin ma hadlin. Indhihiisu way furnaayeen, laakiin meelna ma eegin. Markii la keenay gurigiisa, wuxuu bilaabay inuu gacantiisa ku qoro hal eray. Caafimaad ma jiro, hooyadeed way iga dambaysay. Oday Faarax ayaa markaas sheegay sir la iloobay in badan. Sannado ka hor, aabbihii Xasan ayaa ahaa nin la tuhmay in uu ku lug lahaa dhimashadii haweenaydaas dhalinyarada ahayd, haweenay lagu dilay eed la xiriirta sixir iyo sir qoys. Aaskaas ayaa lagu sameeyey isla geedkaas. Hadda dadka tuulada waxay rumaysan yihiin in naftii haweenaydaas ay doonaysay in Xasan uun ay la hadasho si ay runta u sheegto. Laakiin Xasan weligiis ma hadlin, wuxuuna ku nool yahay sidii qof riyo joogto ah ku jira.